waxaan soo booqonnay marka hore xabsiyo saddex ah oo ku yaal caasimadda maamulka dawladda waqooyi bari runtii waxaanu kormeeray maxaabiista halkaas ku xiran oo ah maxaabiis badan runtii haddaan kormeeray aad iyo aad baan dawladda iyo shacabka iyo ciidankaba kasiiba ciidanka taliyaha ciidanku ugu horeeyo maxamed cabdi dheere halkaas waxaan ku aragnay maxaabiis walow qofku eedeysanaya xorriyadii laga qaaday laakiin noloshoodu ay tahay nolol fiican iyagoo ah maamul cusub oo curdan oo amaamud ah oo muddo badan dhib iyo dagaal ku soo jiray waxay ahayd maxaabiis xagga jiifka iyo xagga cuntada marka ilaahay laga boqo ay aad u sarreyso oo fiican inta hadaan ka gudbo ciidanku ciidan dhisan sibiliin leh kala dambayn leh ciidamadan ka nimid oo xuquuqda qaadanayo kala la mid ah buu ahaa iyagoo u soo dhabar adeegay shaqadaas waqti ay intaan ka xumayd waqti dagaal ahayd waqti ku meel gaar ahayd iyo waqtigaana dawladooda cagaha isku taagtay sidaa daraadeed annagana taliyuhu waajibku noo soo diray shaqo iyo ka warbixin waa diyaarinay taliyihina way is aragnay waana kala qaadanay wax kasta muxuu ahaa baahiyaad waa jiraan wixii baahiyaada iyo wixii aan aragnay waxaan u gudbinaa taliska ciidanka asluubta ilaahay ciidankaanuna wuxuu noqon doonaa kulli ciidan asluubeed oo muxuu ahaa maamulgoodka waqooyi bari ka shaqeeya ciidanka dawladda federaalkaana noqdo wuu noqon doonaa ilaahay idinkii